waxaa suurtagal ah in wakhti xaadirkan aad is leedahay maxaan sameeya xaggeen wax ka bilaabaa iyo su'aalo la mid ah. ma rumaysan tahay in mararka qaar ay noloshu ku bidhaamiso baaq aad kaga jawaabi karto su'aalaha naftaada lorka ku haya? qaab kale aan u dhigo, waxaa jirta shimbir ay soomaalidu u taqaan shimbir malab. shimbirka wuxuu bixiyaa baaq ama ciy ay astaantiisu tahay in goobtaasi malab ka dhow yahay, sidaana ay dadku kula soo baxaan malabka kuwa fahma baaqa shimbirta. sidoo kale waxaa jira shimbiro yaryar oo iyaguna bixiya baaq digniin ah marka ay arkaan maska, sidaana uu qofku kaga fogaado aagga. sidaasi la mid ah, marar badan noloshu waxay bixisaa baaq ka jawaabi kara su'aalaha luraya laftaada. buugga aan maanta idinla wadaagi doono waa buug ay akhriyeen boqorro, madaxda dalal badan, ganacsato, qoraayaal, dadka ugu raadreebka badan dunida iyo malaayiin qof oo dunida dacalladeeda ku nool. waana buug ay dad badan yidhaahdeen waxaan akhriyey xilligii iigu jahwareerka badnaa nolosha. wuxuu ii sahlay ka jawaabidda su'aalo badan oo aan jawaab u la'aa. buuggu wuxuu ahaa noloshayda oo buug loo beddelay. qaar kale waxay yidhaahdaan waxaan akhriyey anigoo 20 jir ah. qaarna waxay leeyihiin waxaan jeclaan lahaa inaan akhriyo anigoo 20 jir ah. buuggaas waxaa la yidhaa The Alchemist. waxaa qoray nin la yidhaa Paulo Coelho. maanta kaagama taariikhinayo buug keliya ee waxaan kaaga taariikhin riyo uu lahaa wiil adhi jir ah iyo su'aalo laga yaabo inay ku daba socdaan inta noloshaada ka dhiman. waxaa la yidhi maalin maalmaha ka mid ah ayaa nin ag mariyey xabaalo. intii uu akhrinayey magacyada iyo taariikhda ku qoran qabuuraha ayay indhihiisu qabteen qoraal ku qoran mid ka mid ah xabaalaha, kaasoo uu si weyn ula ammankaagay. waxaa ku qornaa wuxuu dhintay isagoo 25 jir ah, waxaana la aasay isagoo 80 jir ah. ninkii ayaa yaab la istaagay, wuxuuna isweydiiyey sidee ayay suurtagal u tahay in qof 25 jir ku dhinto haddana 80 jir la aaso. markii dambe ayaa loo sharxay in ninkaasi uusan 25 jirkiisii jidh ahaan u dhiman, balse maalintaas ay dhinteen riyooyinkiisii, himiladiisii iyo hamigii uu qabay inuu wax ka bedelo noloshiisa. intii ka dambaysay wuxuu noolaa 60 sano oo kale, laakiin wuxuu ku noolaa nolol maalmo isku mid ah oo aan lahayn yool, horumar iyo macne. noloshiisina waxay ahayd iska noolaaw. sidaa darteed ayaa loogu qoray qabrigiisa inuu 25 jir dhintay balse 80 jir la aasay. sheekadani waxay ka sawir bixin in ay geeri ula mid tahay qofka marka uu ka quusto riyadiisa iyo himiladiisa isagoo weli nool. haddaba waxaa laga yaabaa inaad maanta shaqo haysato, waxaa laga yaabaa inaad waxbarasho ku jirto, waxaa laga yaabaa in noloshaada dadka kale u muuqato mid wanaagsan, haddana ay jiraan su'aalo si hoose uga guuxaya qalbigaaga, kuwaasi oo ku leh ma intan oo keliya ayaa nolosha u imid? maxaa dhici lahaa haddii aan si dhab ah u raaca riyadayda? miyaan dhab ahaantii adeegsaday awoodda iyo hibada ilaahay i siiyey? haddii aan maanta isbeddel samayn waayo 5 ama 10 sano kadib, ma ka shallaayi doonaa nolosha aan ku noolahay? waa maxay raadka ama dhaxalka aan dunidan uga tegi doono marka ay taydu gasho? buugga alkimistaha waa buug si tartiib ah u eegaya su'aalaha ka buuxi qalbigaaga, kadibna ku weydiinayo su'aalo aan sahlanayn. buuggan waxaa ku xusan in qof walba uu leeyahay khasnad, wuxuuna ku leeyahay maxay tahay khasnadda aad ka baqaysa inaad raadiso. su'aashani kama hadlaysa dahab ama hanti dhulka ku duugan. waxay ka hadlaysaa riyadaada, himiladaada, hibadaada iyo hadafka weyn ee aad dareensan tahay inaad u qalanto, laakiin aad dib u dhigto inaad wajahdo cabsi darteed. waxaa laga yaabaa inay tahay ganacsi aad rabto inaad bilowdo, buuggaad doonaysa inaad qorto, xirfad aad baranayso, ama isbeddel weyn oo nolosha ah. mararka qaarkood khasnadda ugu weyn ee uu qofku raadinayo ma aha waxa uu heli doono, ee waa qofku uu noqon doono marka uu ku dhiirado inuu safar ka bilaabo. haddaba sheekada buuggan la magac baxay alkimistaha waxay ka bilaabanaysaa Santiago, oo ah wiil adhi jir ah oo ku nool cariga Spain. wuxuu lahaa nolol ay dad badani ku qanci lahaayeen. wuxuu haystay xurriyad, wuxuu lahaa xayn adhi ah, wuxuu haystay hoy uu kaga gabado dhaxanta iyo wixii jidiinka mari lahaa. laakiin wuxuu kaloo lahaa wax dad badani aysan lahayn.
taasina waa riyo. habeen habeennada ka mid ah santiago wuxuu ku riyooday riyo aan caadi ahayn. wuxuu arkay ilmo yar oo gacanta qabanaya una tilmaamaya meel fog oo ku taal ahraamta Masar, isagoo u sheegaya in halkaas ay ku duugan tahay khasnad weyn. markii uu hurdada ka kacay ma uusan iska iloobin riyadaas. waxay dib ugu soo noqotay mar kale. wuxuu bilaabay inuu isweydiiyo, maxay tahay sababta aan mar walba riyadan u arkayo? ma waxay ahayd riyo iska caadi ah, mise waxay ahayd fariin igu boorinaysa inaan wax ka beddelo noloshayda? wuxuu raadiyey cid riyada u fasirto. wuxuuna u tagay islaan duq ah. wuu ku soo hungoobay. mar kale wuxuu la kulmay nin xigmad badan oo u sheegay in qof kasta uu leeyahay himilo uu u dhashay inuu gaadho, balse dadka badankooda ay ka baqaan inay raacaan. wuxuu ku dhiirigeliyey santiago inuusan ka baqin inuu raaco codka qalbigiisa, xitaa haddii jidku u muuqdo mid aan la hubin. santiago wuxuu wajahay 2 doorasho: inuu ku sii noolaado noloshii degganayd ee uu yaqaanay, ama inuu u safro dhul uusan weligiis tegin, isagoo aan haysan wax damaanad ah oo sheegaya in khasnaddu dhab ahaantii jirto. arrintan oo kale way adag tahay in lagu dhiirado, halka ay suurtagal tahay in la door bidaa in dib loo dhigo. laakiin santiago si ka duwan dadka badankood ma uusan dooran sugitaanka. wuxuu doortay inuu qaado tallaabadii ugu horraysay, waayo wuxuu fahmay in riyada aan la raacin ay ugu dambayn natiijadeedu noqon doonto qoomamo. hase yeeshee safarkiisu ma ahayn mid sahlan. intii uu safarka ku jiray wuxuu kala kulmay xaalado badan. mar waa la dhacay, wuxuuna ku waayey meesha lacagtiisii. wuxuu la kulmay dad wanaagsan iyo qaar xun oo ka faa'iidaysta daruufihiisa. marar badan ayuu damcay inuu dib u laabto. marar badanna wuxuu isweydiiyey, miyaan ku khaldanahay go'aanka aan qaatay? taasi waa sababta buuggan uu qalbiga dadka u taabto. sababtoo ah qof walba oo akhriya wuxuu isku arkaa santiago. qof walba wuxuu leeyahay ahraamtiisa. qof walba wuxuu leeyahay khasnad uu raadinayo. qof walba wuxuu leeyahay cabsi u diidaysa in tallaabada ugu horraysa uu qaado. markii ugu horraysay ee buuggan aan akhriyo waxay ahayd intii u dhexaysay 2019 ilaa 2020. waxaana igu casumay walaalkay Faysal Cumar. waana uga mahadceliyey runtii. maantana in aan muuqaalkan ka sameeyo waxaa igu dhaliyey walaalkay Guuleed Maxamed. labadooduba way ku mahadsan yihiin. haddaba buuggan intii aan akhrinayey, qaybtii igu saamaynta badan ma ahayn santiago, ee waxay ahayd nin kale oo qisadiisu qayb ka tahay buugga. intii uu safarka ku jiray santiago wuxuu la kulmay nin dukaan yar lahaa. wuxuu ahaa nin noloshiisa oo dhan ku riyoon jiray hal riyo oo keliya. riyadiisuna waxay ahayd in uu mar uun aado mako oo uu soo guto xajka. laakiin sannad kasta wuxuu naftiisa ku maaweelin jiray, sannadka dambe ayaan aadayaa. wuxuu wakhtigii isguraba. maalmihii ayaa isu beddelay sannado. sannadihii waxay isu beddeleen cimri. ugu dambayn isagoo qalbiga ka hadlaya ayuu qirtay qoomamo xanuun badan, isagoo leh, runta ayaa ah inaan ka baqayn safarka, ee waxaan ka baqayaa inaan ogaado inaan cimrigaygii oo dhan ku noolaa riyo aan weligay u dhaqaaqin. qisadani waxay ina xasuusinaysaa in mararka qaar qoomamada ugu weyn aysan ahayn riyo aad ku fashilanto, balse ay tahay riyo aadan weligaa isku dayin. ka shaqsi ahaan, qisadani waa middii iigu dareenka badan ee buugga. maxaa yeelay imise qof ayaa maanta ku nool noloshaas? imise qof ayaa naftooda ku maaweeliya iyagoo leh, maalin ayaan hooyaday waxa u qaban doonaa, maalin ayaan ganacsi bilaabi doonaa, maalin ayaan buug qori doonaa, maalin ayaan waxbarashadayda sii wadan doonaa, maalin ayaan safarkayga bilaabi doonaa. laakiin maalintaasi weligeed ma timaado. casharka ugu weyn ee aan ka baran karna qisada ninkan ayaa ah in riyada dib loo dhigo ay mararka qaar ka khatar badan tahay fashilka laftiisa. sababtoo ah fashilku wuxuu ku barayaa cashir, laakiin dib u dhigistu waa tuugga cimrigaaga. cashirada ugu muhiimsan ee aynu ka baran karno safarka santiago ee buugga The Alchemist waxaa ka mid ah: 1. markaaad rumaysato hadafkaaga, noloshuna waxay ku furtaa waddooyin aadan filayn. boqorkii Salem wuxuu santiago ku yidhi, marka aad si dhab ah wax u rabto, adduunka oo dhan ayaa ku garab istaaga. qodobka 2, ha u oggolaan dadka kale in ay go'aamiyaan halka aad noloshu u socoto. dad badan waxay ku nool yihiin riyada dad kale, laakiin adiga ayaa leh xaqa iyo mas-uuliyadda aad ku go'aamin halka aad hiigsanayso. ha rumaysan beynta ugu weyn ee dunida.
boqorku wuxuu yidhi beenta ugu weyn ee dunida ayaa ah in aynu aaminsannahay in mararka qaar aynan xakamayn karin nolosheenna islamarkaana ay daruufuhu inoo go'aamiyaan mustaqbalkeenna. dooro riyadaada, qadartu waa halkeeda, balse ogow in adiga keligaa aad go'aamin karta jihada noloshaada. abwaan dhaqdhaqaajo erayadiisii waxaa ka mid ahayd adoo waxtar iyo dadaal waxqabad cidi kaa horrayn wakhtiyo adag iyo mar buu dib waayuhu kuu dhigaa. xusuusnaaw ayaamuhu waa wareegto. marka ay noloshu ku soo food saarto wakhtiyo adag ha isdhiibin, hana quusan. xusuusnaaw marka ay ugu adag tahay u xigo wanaag badan. intaaad ku jirto safarka nolosha waxaa kula soo gudboonaan doona caqabado iyo daruufo kala duwan. hase yeeshee waxa ugu muhiimsan ma aha caqabadaha lafteeda ee waa sida aad uga falceliso. waxaad mar walba haysataa laba doorasho: inaad caqabadaha u aragto fursad aad ku kasbato waayo aragnimo iyo dhiiranaan cusub, ama inaad isdhiibto nolosha adigoo marmarsiyo ka dhigan dhibaatooyinka ku soo wajaha. aniguna waxaan ku leeyahay ha noqon sida dadka qaar ay marka ay la kulmaan caqabado wakhtigooda oo dhan ku bixiya ka sheekaynta dhibaatada halkii ay ku mashquuli lahaayeen xalinta dhibaatada. buuggan alkemistaha wuxuu ina xasuusinayaa in wakhtigu uusan na sugin. maalin kasta oo aad tiraahdo berri ayaan bilaabayaa, waxaa laga yaabaa inaad beeldareyso fursad aan dib damba kuu soo marin. waxaa laga yaabaa in qasnadda santiago ay ku dugnid ahraamta, balse ay suurtagal tahay in isbeddelka ugu weyn ee aad ku taamaysay noloshaada ay rumaynteedu ku xiran tahay keliya go'aanka aad qaadan doonto maanta. buuggan waa mid mudan inuu akhriyo qof walba oo dhallinyaro ah. ugu dambayn, waxaan rabaa daawada inaan ku weydiiyo su'aal: maxay tahay riyada aad sannado badan naftaada u sheegi jirtay mar uun ayaan samayn doonaa? waa midda ta kaaga baahan go'aanka.